wardegdeg ah ciidankii ugu tirada badnaa ee tababar ugu ambabaxa dalka Itoobiya oo goordhow laga soo gootiyay deegaano ka mid ah Somaliland muuqaalkan ayaynu ku soo koobi doonaa ciidankaas qorshaha loo soo tababarayo iyo halka rasmiga ay ku wajahan yihiin marka uu tababarkooda soo ilaado intee ayuu qaadan doonaa tababarka ay soo qaadan doonaan gaadiidka lagu daadgureeyay iyo muuqaallo iyo xogo xasaasi ah sababta ka dambaysa xilligan soo dadajisay in ciidan loo tababaro Somaliland Ethiopiana dhabarka ay u xirato ayaan muuqaalkan ku soo koobi doonaa waxaana Yuusuf Maxamed Axmed haddii aad igu cusubtiin fadlan ku soo biira bartayda Facebook oo ka mid noqo saaxiibada igu xiran si aad halkan uga heshaan warar warbixino muuqaalo aan had iyo jeer halkan aynu ku soo baahino bulshada ku dhaqan deegaanada Somaliland ayaa saaka ku waabiristay iyadoo oo basaska ciidamada qaada Ethiopia ay leedahay in deegaano ka mid ah Somaliland ay ka daadgureynayaan dhalinyaro fara badan oo askarnimo loo qoray kuwaas oo tababar ku soo qaadan doona qaybo ka mid ah dalka Ethiopia dhalinyaradan oo tiradooda ay kor u dhaafayso ilaa 300 oo dhalinyaro ah ayaa waxa ay xukuumadda Somaliland ka qortay gobolada Somaliland waxaana qorshuhu yahay in tababar ay ku qaataan muddo kooban dalka Ethiopia dib ugu soo laabtaan deegaanada Somaliland xog aynu helna ayaa xaqiijinaysa in arrintan ay soo dadajisay kadib markii cadaadis dhinacyo badan taabanaya Somaliland ay la kulmeysay muddooyinkan ugu dambeeyay waa tan koowaade cadaadis dhinaca Djibouti ka soo wajahay cadaadis dhinaca Khartoum State ka soo wajahay iyo abaabulka ka soconaya dhinaca Awdal oo ay Somaliland cabsi badan ka qabto abaabulka ay wadaan bulshada halka ku dhaqan oo qaarkood ku hanjabay in ay meesha ka saari doonaan maamulka Somaliland xubnaha sheegtay ee ku sugan gobolka Awdal Ethiopia oo ay fariin toddobaadkii hore ay u dirtay xukuumadda Somaliland ayay ka dalbatay in ciidamo ay u soo dirto balse Ethiopia ayaa arrintaasi ka gaabsatay kadib waxa ay keentay in xukuumadda Somaliland ay codsato in dhalinyaro tababar loogu qaaday Ethiopia kuwaas oo soo qaadan doona tababar dhinaca militariga oo Ethiopia ka aqbashay waxaa la arkayay basaskan oo ka sii gudbaya dhinaca Wajaale isla markaana waxa sugootiyay taliyaha ciidanka militariga ugu magacaaban Somaliland Nuux Taani ayaana sugootiyay waxaana la filayaa in dhawaan markii tababarka loo soo xiro dib loogu soo celiyo deegaanada Somaliland waxa ay si toos ah u wajihi doonaan in ay ka howlgalaan ciidamadan tababarka maanta loogu qaaday Ethiopia deegaano ka mid ah SSC oo ay doonayso Somaliland in dib gacanteeda ay u soo geliso kadib markii 25 Agoosto sanadkii hore 2023 guud ahaan gacanta Somaliland ay ka baxday qaybo ka mid ah deegaanada SSC Khartoum si lamida ciidankan ayaa qorshuhu u yahay in xukuumadda Somaliland ay u adeegsato ka hortagga abaabulka ka soconaya Awdal waxaa kale uu qorshuhu yahay in la geeyo xadka Somaliland ay la wadaagtay Djibouti oo dhaqdhaqaaqay ciidan halkaasi ay ka socdaan waxaa muuqanaysa diyaar garow ciidan in mandaqada ay gashay Soomaaliya dhawaan waxa ay soo bandhigtay ciidankii ugu tirada badnaa waxay ku soo beegtay xuska 63 sano guuradii ka soo wareegatay markii ay midoobeen gobolada Koonfureed iyo Waqooyi isla markaana gobolada Koonfureed xurriyadda ay ka qaateen gumeystihii Talyaaniga Ethiopia dhaqdhaqaaqay ciidan ayay ka wadaa xadka ay guud ahaan Soomaaliya la wadaagto halka Djiboutina ay dhaqdhaqaaqay ciidan ay ku xaqiijinayso amnigeeda guud ay ka wado xadka ay la leedahay dhinaca Somaliland waxaase jirta cabsi dagaal oo laga qabo in mandaqada ay ka dhacaan si kastaba ha ahaatee waxa qorshahan oo Ethiopia ciidamada ugu tababarayso Somaliland uu ku soo aadaya xilli wili aan la meel barinin is-afgaradkii Somaliland Ethiopia dhexmaray ee keenay xiisadan hadda ka taagan geeska Afrika ee sababta u noqday in xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya Ethiopia meeshii ugu xumeed abid uu gaaro ilaa dhamaadka muuqaalkan haddii aad nala soo gaarto waa kaaga mahad celinaya wixii warar ay ku soo kordha arrintan halkan isha ku hay oo waxaad noqon doontaa daawadaha ugu horeeya ee la socda